بسم الله الرحمن الرحيم aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijkan ugu magac darnay sidee baan ku noqdaa qof muthaqaf ah ama qof aqoon-yahana la shak inaynu baahi ka bulsho Soomaali ahaan aynu u qabno inay inoo soo baxaan dad aqoon-yahana ah muthaqafiina doonaya isbedel inay ka sameeyaan muuqda bulshadooda door weyn ay ka qaataan marar fara badan waxay soo gaadhaa su'aalo odhanaya sidee baan ku noqdaa qof aqoon-yahana dhammaantiin waxaanu jecelnahay inaynu noqono qof dad aqoon-yahana ah laakiin aqoon-yahanimadaasi waxay u baahan tahay waddo loo maro iyo aqoon iyo xirfado haddii ilaahay yidhaahdo muuqaalkan ama xalaqaadkan ilaa 8 ah ama 9 noqon karaya waxaan rabnaa inaan hadduu ilaahay yidhaahdo ku qaadaa dhigno weydiimo fara badan oo ay ka mid tahay waa kuma qofka aqoon-yahanka ah calaamadihiisu calaamado noocee buu leeyahay maxaa lagu gartaa oo astaaba u ah waxaynu ka sheekeyn doonaa ilaha aqoonta waxaynu ka sheekeyn doonaa qofku sida uu muthaqaf ku noqon karayo xirfadaha qofka aqoon-yahanka ah waxa ay tahay inuu akhriyo sida ay tahay inuu u akhriyo doorarka ay tahay inuu ciyaaro iyo arrimo kale oo aad u fara badan waxaan jeclahay xalqadan hadduu ilaahay yidhaahdo inaynu isla eegno macnayaal kala duwan oo aad muhiim u ah qofka muthaqafka ama qofka aqoon-yahanka ah inuu ogaado iyo mustalaxaad u baahan in la furfuro iyo eray bixinno u baahan in la falkiyo oo qofka muthaqafka ay tahay inuu wax badan oo fahana uu ka haysto si uu uga garto majaalkiisa waxaan jeclahay inaan wax iska weydiino aqoon-yahanka qofka aqoon-yahanka waa qof noocee macnaha muthaqafka ama qofka aqoon-yahanka waa qof leh 3 door intaan 3 door uu leeyahay horta aanan tilmaamin ama 3 arrimood calaamadooda uga gaarka yahay aanan tilmaamin waxaan jeclahay inaan isaga kusoo gabagabeeyo laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo maxay u kala duwan yihiin mustalaxaadka kala duwan sida mufakkir faylasuuf caalim daaci iyo muslix iyo mustalaxaadka la midka ah maxay u kala duwan yihiin aad bay muhiim u tahay inaad kala taqaano haddaad doonaysa inaad noqoto qof ka mida mukhbada iyo labeenta ummadda u fakarta wax ku soo kordhisa inaad mustalaxaadka aad aqoon u leedahay aan ku horeeyo faylasuufku waa kuma faylasuufku waa qof wax iska weydiiya qadaayaadka kulliga ah ama qadaayaadka guud sida jiritaanka aadanuhu halkuu ka yimi masiirkiisu muxuu yahay halkee buu ku dambeyn doonaa kownkan yaa abuuray ujeedadii laga lahaa maxay ahayd masaa'il metaphysics London baa jirta cilmiga falsafada la yiraahdo metaphysics la yiraahdo ama luqada carabiga lagu yiraahdo ma waraa tabiica ama Soomaali noqon karaysa dabeecadda waxa ka shisheeya waxa aanu aadanu garan kareynin waxa iska weydiiyaan maxaa aqoontu xagee ka timaada maxaa aqoona maxaa lagu gartaa bini'aadamku sidoo aqoontu ku ogaada oo London oo iyadana falsafada kamid oo la yiraahdo epistemology waxay sidoo kale wax iska weydiiyaan maxaa xaq ah maxaa baadilka maxaa lagu garanayaa xaq maxaa lagu garanayaa waa laga yaabaa inaad su'aalaha aad dhahaysaan waa su'aalo fudud laakiin si falsafiya marka loo eego waa su'aalo camiiq ah u baahan culimada islaamka qaarkood xitaa wax iska weydiin jireen waa fieldan oo moralka iyo ethicska iyo akhlaaqiyaadka ay wax iska weydiiyaan waxay kale iska weydiiyaan quruxda maxaa quruxda maxay tahay maxaa lagu gartaa ilaa qof walba quruxda si uu u arkaa maxaa quruxda asalkeedu waa maxay iyo wax la midka oo iyada London oo cilmiga falsafada kamida falsafada waa aqoon takhasus weeyaan la barto iskuulo loo aado ilaa PhD lagu qaato bale qofka PhD qaata waxa la yiraahdaa Doctor of Philosophy aqoon kasta uu qaadanayo oo halka ugu sareysa weeyaan muxuu kaga duwan yahay faylasuufku mufakkirka wax badan baa maqasheen qofkaasi waa mufakkir intaanan mufakkirka u galin
فيلسوفية dad badan baa jiray oo galbeedka soo maray dadka ugu caansan galbeedka waxa taqaanaan Aristotle iyo Plato Socrates ama Socrates Kant iyo rag la mid ah fara badan oo mucaasiriina muslimiintu dad falaasifay lahaayeen waxa kamid ah falsafadoodii Ibn Sina iyo Farabi oo ka weynaa waxa kamid ah Ibn Rushd علماء أهل السنة وحكمها ابن تيمية يو إمام غزالي محمد الغزالي رحمهم الله جميعا لما تلاقوا وذن حرسته وذكروا وحيا عند فلاسفة أي أهين عصري نويج عند فلاسفة لكن ما تربطنا هذا محو كجدوية مفكرك فيلسوفك محو مفكر كجدوية مفكرك وقف تخصص له حلقة يبقى إنه إنجنيري صابرتي وحلقة يبقى إنه دكتور صابرتي حلقة يبقى إنه شريعة صابرتي لكن وقف تخصص كيسي كبل هذا وقف أصاب بحي مجال كفكرك إنه سمي أفكار هي مفاهيم إنه طريق دي خورة بارو أو كسر صار قواعد هي سنن لو فهم كرايو تقتدي إنك تكتي هي تاجن تمانته سي أمضى وأدرسه مستقبل قروح بدن يتماد قروح بدن وحاد سكو حولا إنه فلكيو أو أجند دجو إن حديدة مشاكل بالشدة هاي ستا لقن كيدو نقدية نسيد أفكر يسون نقدية أقول تيدو نقدية وقف مفكر كمسلمين تدب بدن بعصاب مري قلبيت كدب بدن بيليهين لكن كون المسلمين رج بدن معاصرين مالك من النبي وحكم ده رج ما أنت معاصرين تدنبه إلى ونحرسوا حكم ده عبد الوهاب المسيري رج دنبه عربته وحكم ده عبد الكريم بكار دكتور طارق السويدان بحكم ده رج فرا بدن بهجرة إنه كصومالي هان ملينا هاي مفكرين طبعا ها وحناد وقحوا سكريا الشيخ مصطفى ومفكر ويان سيدو كلا عبد الرحمن سليمان بشير شيخ جيبوتيان كعان كله ودي قالوا وهنين مفكرة وحكم إذا ضدك أن لقب ملاين إن بدن dadka suugaanyaanka uma arkaan inay yihiin dad mufakiriina laakiin waxa kamid ah Hadraawi oo markaad aragto maansooyinkiisa dabahuwan oo kale sida uu naqdinayo afkaarta reer galbeedka iyo wadciga ummadu ku nooshahay siday u nooshahay iyo koonkan ay ku nooshahay siday ula falgali lahayd dabahuwan ilaahay yaa ku keenaya waxa kamid ah maansadiisa afku siran iyo maansooyin kale oo fara badan markaad akhriso waxaad ogaanaysaa inuu yahay qof mufakir ah waxa kamid ah ilaahu naxariista gaariye marka mufakarku takhasusad kala duwan buu leeyahay wax la barto aan idhaahday takhasusad qofka inuu leeyahay baa dhici karaysa laakiin takhasuskiisii uu ka baxay uu ka gudbay majaalka fikriga ayuu u gudbay fikirka hadaba laguma barto jaamacadaha laguma barto laakiin waxa weeye qofku waa wado uu jeexanayo waxay leedahay qawaaniin iyo wado uu qofka u raaco iyo kutub la akhriyo ayuu leeyahay xalqadan 10 daqiiqo ayaan jeclahay inaan ku soo ururiyo xalqada ku xigta waxaan kaga sheekeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo muxuu yahay qofka caalimka ah muxuu kaga duwan yahay mufakirka iyo filosoofka waa muxuu yahay qofka daaciga ah muslixu muxuu yahay iyo wixii la midka ah حلقة كلا إنتان كوكل ميدونو أدبن دين وسلامية